Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan isku arkay dambeysay mini toolbar. Waxaan ka bilaabaynaa mini toolbar. Maxaa la yiraahdaa mini toolbar? Waxaa la yiraahdaa mini toolbar waxay ku siinaysaa si dhaqsi leh in aad ku shaqeysid amarada aad u baahan tahay. Waxayna soo muuqataa markastoo aad dooratid qoraal ama right click aad dhahdo object. Mini toolbar ka sheegaya waa kana sawirkan meesha ka muuqda waxaa leenahay mini toolbar. Waxaa jira waxa la shortcut menus. Shortcut menus waxaa la leeyahay Word 2013 includes waxa ku jira la leeyahay shortcut badan kuwaas oo marka soo muuqdo marka right click la yiraahdo kaliya soo muuqda. Marka waraaqdan yarta waxa la yiraahdaa shortcut menus magaceeda waa. Navigation pane waxa la yiraahdaa navigation pane waxa leenahay navigation pane wuxuu bixiyaa si dhaqsi leh in aad documentigaaga wax kaga bedeshid documenti weyn ama documenti hore u jiro kala haduu yahay. Wuxuu leeyahay search box kuwaas oo marka aad ka raadin kartid text gooni aad rabtid ama dib aad u hagaajin kartid content-gaaga. Waxa ku jira leeyahay search box kuwaas oo marka aad ka fiirin kartid saddexda tab marka aad raadisid. waxaa sidee loo soo furaa navigation pane. To open navigation pane waxaa leenahay view tab tagaysaa show group select waxaad doorataa navigation pane kadibna check box waxaad soo saartaa navigation sawirka meesha ka muuqdo kale sawirkan fiiri meeshaan check soo saaraysaa. Navigation pane wuxuu ku soo furayaa dhanka bidixda kaaga soo furmaya program window sawirka noocan oo kale kaaga soo furmi doona. sidee marka loo raadiyaa search navigation pane marka la raadinayo waxaa search box tab waxaa qortaa qoraalka aad rabtid inaad raadisid kadibna press enter key. Search result wuxuu soo search results display intaan kugu soo muujinaa heading tab kugu soo muujinaya kaas oo hadii laga helo wixii aad raadinaysay helaadsa kugu soo muujinaya. sidoo kale wuxuu ku soo muujinaya page tab kaas oo marka hadii ku jirto wixii aad raadinaysay ayadana kaaga soo muujinaya. Result tab jirta ayadana wuxuu kaaga soo muujinaya natiijada ama wixii la helay ee guud ahaan documentiga laga helo kaaga soo muujinaya. Waxaa marka note marka aad review ku sameynayso resultigaaga navigation pane-ka adoo isticmaalaya scroll bar-ka u isticmaali kartaa dhanka midigta. sidoo kale hadii aad rabto marka meel gaar ah inaad tagtid waxaad isticmaali kartaa previews iyo waxaad isticmaali kartaa next button laba buttonadaas isticmaali kartaa adoo top of the pane si aad ugu dhex socotid alle pageska iyo heading iyo result. Backstage view waxa la yiraahdaa jiro. Backstage view waxa leenahay file waa file marka the first tab on the ribbon waaye waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo backstage view-ga kaas ay ku jirto dhammaan amarada la isticmaalo markii la maamulayo faylasha si loo customize gareeyo ama wax looga bedelo programka. wuxuu ku siinayaa hab fudud aad ku sameyn kartid documenti cusub ama aad ku soo furi kartid documenti hore u jiray. sidoo kale save aad ku sameyn kartid print share export and close. waxaa jirto sidee loo soo bandhigaa display backstage view marka la sameynayo waxaad tagaysaa file ribbon kadib waxaa leedahay file-ka aad sheegeen oo ka bilaabaysa backstage view waa kana kadibna waxaa soo muuqan doona backstage view wajigaana la lahaa. sidee looga laabtaa markii laga laabanayo backstage view-ga aad joogtaa dirtaan waxaa leenahay button-kan oo hadda diilinta guduud saaran tahay back aad dhigi kartaa ama waxaad sameyn kartaa escape adoo taabanayo aad sameyn kartaa. waxaa ka bilaabanaa waxa la yiraahdo mini toolbar. waxaa sheegnay mini toolbar in la dhaho sawirka hore aan soo aragno kale tusaale waxaa soo gelinaya meeshaan qoraal test oo kale ama qoraal badan soo gashanaya. waxaa leeyahay qoraal badan hadda soo gashanaysid equal randy kadib shift qabo bracket fur bracket haddana xir adoo shift hay enter dheh idii qoraalkan ku soo galay automatic. marka waxaa rabaa tusaale inaan tuso waxa la yiraahdo mini toolbar tusaale qoraalkan helaad gareeyay sawirkan yarka soo baxay waxaa leenahay mini toolbar ayaa la yiraahdaa. marka wuxuu ku soo degnayaa inaad qoraalka wax ka bedeshid midabka farta size-ka waxaas dhan gadaal ka arki doonaa. waxyaabahaas oo kale u isticmaali kartaa.
waxaa kaloo jiro waxa la yiraahdo shortcut menus wax la yiraahdo jiro. shortcut menus ayadana waxaa leenahay wax kala mid ahaan tusaale waxaa la dhahay font group right click dhahay waraaqda yarta ii soo baxayso magaceeda waxaa la yiraahdaa shortcut menus. marka waxaa leenahay shortcut menus qaybtaas la yiraahdaa. waxaa noogu xigo waxa la yiraahdo navigation pane. navigation pane waxaa dhihi karnaa in xagga imaadid view tab kadibna waxaa imaanaysaa navigation pane tigaa saaraysaa meesha ama saxa saaraysaa wejigana kusoo bixi doono. navigation pane waxyaabo badan loo isticmaalaa. waxaa arki doonaa find ayadoo la sameynayo oo erayaha ka raadinaysid, replace adoo sameynayo erayada eraysa adoo ku bedelayo waxyaabahaas u isticmaali doontaa. saddexda tab oo leeyahay waa kana heading, page iyo result. marka waxaa arki doonaa dhammaan sida loo isticmaalo markii aad gaarno find iyo replace markii la sameynayo. laakiin si ugu adeertaan waxaa la yiraahdaa qaybta navigation pane. hadda iska xiraysid sidaas iska xiri kartaa. haddii aad soo muujinaysidna check soo saaraysaa. first waxaa soo galay view kadibna check saaraysaa. waxaa jira waxa la yiraahdo backstage view. backstage view waxaa dhihi karnaa file inaa imaadid click siinaysaa kadibna wejigan kusoo baxaa waxaa la yiraahdaa backstage view. wuxuu leeyahay options kan dhan inaad new samayn kartid document cusub, open inaad dhihi kartid mid hore u jira inaad soo furto, save inaad dhahdo save garaysid documentigaaga, save as inaad dhahdo documentigaaga inaad dib u save garaysid magaca ka bedeshid ama locationka uu yaalo, print iyo wixii lamida. markaa rabtid inaad ka laabato waxaad dhihi kartaa falaartan inaad ku dhufataa ka laaban kartaa. waxaa ku laabanaysaa meesha caadiga ahayd ama xaggan adoo jooga waxaad taabanaysaa escape kadibna wuxuu kugu celinayaa meeshaan. cashirkeena intuu noogu egyahay waa inuu cashirka xiga insha allah.